kulanti habboon daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal kale iyo channelkeeni Nacfi Media. Haddaba muuqaalkan maanta waxaan ku qaada dhigi doonaa hibiscus tea ama shaha ubaxa guduudan ama ubaxa casaanka ama karkaday hadba sidaad u fahmi karto. Dadka qaar siday ugu yeeraan waa karkaday ama ubaxa casaanka oo laga sameeyo cabitaano iyo dawooyin dhaqameed aad caan uga ah bariga ee bartamaha Afrika, wadamada Carabta iyo Asia. Faa'iidooyinka hibiscus tea waxa uu yareeyaa cadaadiska dhiigga. Haddaba hibiscus tea waxaa la caddeeyay inuu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga, gaar ahaan dadka qaba dhiig karka. Caafimaadka wadnahana waxa uu yareeyaa kolestaroolka xun, wuxuuna kor u qaadaa caafimaadka xididada dhiigga. Qoyaanka iyo qaboojinta jirka marka la cabayo qabow ay qofka dareemaya wuxuu yareeyaa haraadka, gaar ahaan xilliga kulaylaha. Xoojinta difaaca jirka waxaa hodan ku ah ama hodan uu ku yahay vitamin C oo ka caawiya jirka inuu iska difaaco infectionka iyo hargabka. Waxa uu caawiyaa dheefshiidka, calool fadhiga iyo xanuunka mindhicirka. Dhanka miisaanka oo la xakameeyana waxaa lagu tiriyaa cabitaanada ka caawiyo miisaan dhimidda dadka, maadaama ay dardargeliso dheefshiidka kiimikaadka ee metabolismka. Waa daawo dhaqameed wadamo badan waxaa loo adeegsadaa daweynta caabuqyada kaadi mareenka, caabuqa hunguriga iyo xanuunka murqaha. Sida loo isticmaalo hibiscus tea ama karkadayga, haddaba ubaxa la qalajiyey waxaa lagu karkariyaa biyo kulul 5 ilaa 10 daqiiqo. Waxaa lagu daraa malab ama sonkor dhadhan ahaan fiican. Waxaa lagu cabi karaa qabow ama kuleel. Casiir ahaan, hibiscus la karkariyey kadib la qaboojiyey waxaa lagu daraa liin ama toon dhadhan fiican leh. Meelo badan waxaa loo isticmaalaa sidii tonic caafimaad iyo cabitaan tamar siiya jirka. Dadka aan loogu talagelin iyo taxadarka dadka qaar loo muujiyey, inkastoo faa'iidooyin badan uu leeyahay. Dadkana waxaa jira dadka qaba cudurrada soo socda in aan loo ogoleen. Wax ka mid ah haweenka uurka leh iyo naasnuujinta. Waxaa jirta cabsi ah in uu sababo hoos u dhaca cadaadiska dhiigga ama dhibaato uu ku keeno uurjiifka. Sidaa daraaddeed waa in laga fogaadaa. Dadka qaatay dawooyinka dhiig khafiifiya wuxuu kordhin karaa khatarta dhiigbaxa. Dadka qaba xasaasiyadda ubaxyada qaarkood waxaa dhici karta inuu keeno finan, lalabo ama madax xanuun. Dhanka sonkorowga waxa uu yareyn karaa heerka sonkorta dhiigga. Marka dadka isticmaalaan dawooyinka sonkorowga waa inay si taxadar leh u isticmaalaan. Hibiscuska waa ubax markaasi faa'iidooyin badan leh oo cabitaan ahaan loo isticmaalo. Hibiscusku waxa uu leeyahay hanti aad u badan oo gacan ka geysto hagaajinta caafimaadka. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah waxa uu ka shaqeeyaa sidii loo dhimi lahaa heerarka dhiig karka. Sida ay cilmi baaristu tilmaamayso in qaadashada maalin kasta uu keenayo hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga celcelis ahaan 7.5 milimigram Hg iyo cadaadiska dhiigga diastolic celcelis ahaan 3.53 mmHg. Waxa uu ka qayb qaataa dhimista khatarta qofka ee cudurrada wadnaha iyo sidoo kale xididada dhiigga. Wuxuu caawiyaa in ay hoos u dhigto heerarka sonkorta dhiigga oo ka dhigaysa mid faa'iido u leh dadka macaanka qaba. Waxaa leeyahay cabitaanka ama shaha hibiscus tea waxa uu taageeraa caafimaadka beerka, wuxuu yareeyaa dhaawaca saameynaya oo ay ku jirto ama uu ku jiro ilaalinta beerka dufanka leh. Waxaa ku jira isku dhisyo yareeya halista noocyada kansarka qaarkood sida caloosha, qanjirka prostate-ka, kansarka afka. Waxa uu ka hortagaa horumarinta cudurrada bakteeriyada ay keento iyadoo uu gacan ka geysto sifooyinka bakteeriyada, laakiin tani ay u baahan tahay daraasaad caafimaad oo dheeraad ah si loo xaqiijiyo natiijooyinka. Wuxuu ka caawiyaa ka hortagga injirta timaha ku dhalata. Waxaa loo arkaa cabitaan ku habboon dadka u nugul kafeynka sababtoo ah waa bilaash. Haddaba hibiscuska waa ikhtiyaar faa'iido u leh dadka isla markaana loogu talagalay horumarinta caafimaadka. Faa'iidooyinka hibiscuska leh khal tufaax. Dhanka miisaan dhimista, hibiscuska waa cabitaan qani ku ah flavonoids iyo macdanta lagama maarmaanka u ah jirka. Waxa uu ka shaqeeyaa yareynta nuugista jirka dufanta sonkorta iyo sonkortaba, taasoo gacan ka geysata dhimista miisaanka. Waxaa kaloo ku jira heerar sare oo antioxidant oo kor u qaadaya waxtarka hababka muhiimka ee jirka dhexdiisa. Intaasi waxaa dheer, hibiscus tea ama shah waa dareere wanaagsan kaasi oo ka caawiya jirka inuu ka takhaluso dareeraha xad-dhaafka, sida awgeed hoos u dhigo miisaanka. Faa'iidada kale ee cabitaanka ubaxa casaanka ee hibiscus tea loo yaqaano, gaar ahaan marka lagu qaato khalka tufaaxa, waa awood uu u leeyahay inuu hagaajiyo dareenka dhuuxa buuxa. Khalka tufaaxa waxa uu caawiyaa dhimista rabitaanka cuntada, taasoo yareysa qaadashada kalooriga
oo ka qayb qaata dhimista miisaanka waqtiga kadib. Daraasad ay ku jireen 150 qof oo miisaankoodu xad dhaaf ahaa waxa uu muujiyey in qaadashada 10 mililitar oo khalka oo tufaaxa iyo maalin kasta ay keento in dufanka caloosha uu yareeyo miisaankana hoos u dhaco. Isku dhafka gaarka ee biskaska iyo khalka tufaaxa ma aanu kaliya inuu caawiyo xakameynta rabitaanka cunnada, sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa heerarka sonkorta dhiigga, wuxuu siiyaa jirka calories ku filan oo aan dufan lahayn. Faa'iidooyinkiisa sida loo diyaariyay haddii aan eegno, si aad u diyaarsato cabitaan ama shaah hibiscus ka caawinaya inaad miisaankaaga si fiican u lumiso, raac tallaabooyinkan. Marka hore, 3 qaado oo caleenta hibiscuska ku shub koob biyo iyagoo qalalan, kadib kari shaah 5 daqiiqo, hubi inaad daboolatay dheriga. Intaa kadib ka saar dheriga kuleylka oo qabooji, isku dar marka uu qaboobo, ku dar qaado sinjibiil ah iyo qaado kale oo malab. Isku darkaasi oo si fiican u walaaq maaddooyinkan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa nus liin ama jab liin la tuujiyey si aad ugu kordhiso waxtarka cabitaanka ee dufanka gubaya. Natiijooyinka ugu fiican waxaa lagu talinayaa in la cabo cabitaanka maalin kasta 1 saac ka hor cuntada ugu muhiimsan. 14 maalmood waxaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha ama fridge-ka ama refrigerator-ka. Haddaba sida aanu ka hadalnay waa cabitaan dabiici ah, waxaana laga helaa dawooyinka dabiiciga iyadoo ugu wacan yahay maaddooyinka ku jira. Waxaa lagu kala soocaa ubaxa soo jiidashada iyo midabka leh dhadhan gaar ah oo isku jira dhadhanka macaanka iyo dhadhanka dhanaanka. Dadka way ku kala duwan yihiin dookhooda. Dadka qaar waxay doorbidaan in cabitaan qabow ahaan ay u cabaan, halka qaarna ay doorbidaan in uu kulul yahay oo shaah ay ka dhigtaan. Faa'iidooyinka hibiscuska kuma koobna oo keliya caafimaadka guud, waxaa kaloo loo isticmaalaa diyaarinta daryeelka maqaarka, in uu ka caawiyo dhimista miisaanka, yareynta baruurta marka si joogto ah loo isticmaalo. Arrimahaasi ayaa ka mid ah waxyaabaha inta badan hibiscuska waxtarkiisa isugu jira sida qeybaha hore aan idinkugu sheegnay. Haddaba waxtarkiisa waa uu badan yahay oo dad badan ayaa muddooyinka ugu dambeeyay isticmaalayay karkadey ama hibiscus. Waxa haddaba dawooyinka qaar ee uu la falgalo, gaar ahaanna wuxuu hoos u dhigaa dhiigkarka, waxa uu markaasi hoos u dhigaa dawooyinka. Waxa fiican in la cabo 1 ilaa 2 koob maalinkii. Haweenka uurka leh, kuwa naasnuujinta sameynaya, dad kale cudurrada daba dheeraada waa inay dhakhtarka la tashadaan si ay u ogaadaan in loo oggolaanayo iyo in kale. Dhibaatooyin tiro badan ayay dadka qaar ka dhaxlaan. Waxaa ka mid dadka xasaasiyadda qaba, dadka dhibaatooyinka dheefshiidka qabo, saameyn ku yeelashada dadka uurka leh iyo arrimo badan ayay dhakhaatiirtu sheegeen. Hase ahaatee, shay walba xaddigii loogu talagalay haddii la dhaafiyo wuxuu keenayaa caabuq ama xanuun ayaa ka dhalanaya. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta. Haddii ay tahay markaa koowaad aadna soo booqatay, like garee muuqaalkan, la share garee asxaabtaada, qaybta commentiga aragtidaada, faalladaada inoogu reeb. Sidoo kale subscribe inoo saar channelkan meel fog si uu inoogu gaaro. Waxaan kaa codsanayaa 1 jeer gambaleelka inaad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee hela xogtayada halkan aan ku baahino. Waa muuqaal aan filayo wax badan in aad ka kororsan doontaan haddii Rabbi weynaha raalli uu ka ahaado.